حتى سيرة وحكوتها على في السنن قال هذا مركي الله سوق بتقارك والنبي يقول ونجري مسكيته كل حرة ثمامة بن عثال كمدة في صحيح البخاري رحمه الله سري النبي قدري مرقاس النقا سوق بتان مرقاس النقي النبي الله كاني ما قرنا سانيكا ما قرنا إنه وثمامة بن عثال وملك اليمامة هل قال يقول حرة يقول مسكيته كل حرة يقول حرة ساجد كواجل markaas halkii baa lagu dhaxidhay markaa nabigu reerihiisii u tagay cunto uga soo qaaday hashi irmaanida nabiga noo maalay caanaheegina uga soo qaaday markaas nabigu halkii ugu keenay oo waacad oo nin xidhxidhan markuu cuntadii siiyay oo caanaheena ka bisiyay buu ku yiri ya Thamaama iska soo islaam markaas uu ma islaamay buu in taqtul daadamin wa in تنعم على شاكر وإن تريد المال فسل ما شئت بكير يا محمد هذا أنا جاي دشيت بكير نن دي جيس دول كون دعية ميه بودي طول باي قدام باي بودي هذا قال لي ستنا ما أنتم حريقة يجسي دي سنة نن أبال عليان هاي بودانو وأنا أبال قدي هذا المال يديه دون السنة شيء واحد دون توافقسينه لكن حريقة يجسي ده مرقاب النبي عليه الصلاة والسلام وحكو يري مي كما سيدين النبي كيري هبين كيبو هالكي كبريي عشدي النبي هذا لو كان حشي النبي عنها وكم عليه يسقل لو كم عليه أي النبي عليه الصلاة والسلام يسقل أيوه كان عنه مرقاس وكو علي هذا نقول اسك الإسلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيا نين قال أو مشركة عنه سينتو كان سينايا حراتكو كو عسينين انتو سو غالب هردغيا مرقاس وليبا او خدمينيا او اديغيا او ليهي سو اسلام محو نبي ونك الله ما غنيهي انو النار كبدبادو مصب كدوني مايو لعق كدوني مايو شهرت كدوني مايو waxa kaliya uu ninka nabigu ka doonaya waxa weeyaan inuu soo islaamo markaas uu ku celiyo hadan ya Muhammad haddaad idishid dhiigaygu dhulka u dhici maayo waa laga dambeeyaa buuri haddaad igalladaysatina maanta oo isii deysid oo xariga iga sii deysidna nin abaal celiyaan ahay buuri anigu ma ciyaar nin kaftamaya ma yihiin abaalkaaga waan gudi haddaad adduunyo doonaysana xoola waxa doonaysa i weydiiso madax furasho waan ku siinay xariga iga sii daa markaa nabigu kaleey salaatu wasalaam ku yiri may markaas de waa hagaag anigu ma islaamay buuri هذا ما لين دي سدحات سيدي يسلب نبي نكي ugu khidmeeyay xaraadkii buu keenay anihi buu keenay markaas uu yaa Thamaama iska soo islaam sidii uu isaguna ku jawaabay markaa buu nabigu saxaabadiisa ku yiri dilkiisu waxba inoo tari maayo xadiga ka sii daayay iska socday buu yiri sii daayay markii la sii daayay magaaladii Madiina ka baxay baarihi baar kamida buu galay عال أي لا هيدو بيه كسر دانسدي وكسر قبيستي وصوم ميدي مساجد النبي جينا وكسر نقضي سقاله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصل يا رسول كنا صلى الله عليه وسلم برجع يا رسول الله دين تادن ديمها ونعبا لكن ما أنت لقى بلا دين تادن ديمها وجعلها هي ضل كاغان أدوية ونعبا مقالة مدينة يا مقالوك وجعلها هي وجهاغان وجيده ugu nacba maanta laga bilaabana dadka Ilaahay abuurada kugu jecelahay buu ka yiri habadle ninkaas saddexdii maalmood ee masaajidka nabigeena kaleey salaatu wasalaam uu ku dhaxidnaa masaajidku waa meesha raxmadda Ilaahay ku soo degayso waa meesha malaa'iktu ay imanayso waa meesha muslimiintu Ilaahay ku xasuustaan waa meesha qofkii soo galaba loo daba dhaafo weeyaan waa meesha nabigeena kaleey salaatu wasalaam uu doortay inuu ummadiisa ku tarbiyadeeyo هذه الدين لبرينا عهد نبينا مساجد كان نبينا كبر جري هذه دل الإسلامين يا مسجد قال له إسلامين يي هذه جماعة الله بري مسجد بنبي كبر يي هذه وفود نبي قابل يي مسجد بكو قابل يي لا أنا مساجد كوا أقل كلاهي ما العتك الله نسبين معها فدقات فريستي بعد كيف يديسن كذا وعد جنبه وعد جواد وعشاء يا حتى هذا بحبك فهمي ويدو فدقا مسجد كعاد فدقا إلى هاي كوكون حريصا
laakiin dadkeena maxaa fadhigi masjidka ku adkeeyay maanta masaajidii waa mahjuura waa laga hijrooday halkee camiran maqaaxiyaha camiran maanta majaalistii qaadkaa camiran meheradihii adduunyada ayaa camiran 24 saaca adduunyada meelaheegu waa macmuur laakiin masaajidii raxmadu kusoo degaysana waa mahjuur maanta axabu lbilaadi ila allahi almasaajid dhulka ilaahay meeluhu ugu jeclaa waa masaajida meelihii ilaahay ugu jeclaaba naftu ka ordaysaa maanta oo nafteennu ay ka didaysaa meelihii ilaahay arlada ugu necbaana nafteenni maanta way ku xasilaysaa maxaa bedelay ninkaas saddexdaa maalmood masaajidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam khayrkii uu ka maqlaayey khayrkii uu ka arkaayey acmaashii masjidka nabigeena saxaabadu ay ka qabanayeen ayaa noloshiisa ilaahay ninkaa ku bedelay markaa buuri yaa rasuul allah cimraan u socdee maan u sii socdaa mise waan iska noqdaa markaa buu nebigu uhi maya oradoo cimrayso laakiin wuxuu nebigu markaa uu sheegay arkaantii cumradu uu sheegay ilaa cimrada iyo xajku waa soo jireen zaman jahiligi carabtu xataa way xajin jireen wayna cimraysan jireen markaa buu nebigu u sheegay arkaantii cumrada sidaa iyo sidaa iyo sidaa markaasuu maka soo galay waxaa la yidhi waa saxaabiga ugu horreysay magaalada maka soo gala isagoo mulabiya isagoo le labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulku laa shariika laka waa saxaabigii ugu horreysay ee talbiyadda islaamka la yimiday tawxiidka la yimiday ee magaalada maka soo galay buu hamaama radia allahu canhu quraysh ayaa markiiba ku soo ururtay waxay ku yidhaahdeen waxaana soo gaadhay hamaamow inaad diinteenni aad ka baxdeen maxaa ka jira markaasuu yihi marka horeba diin maan haysane diintii nebi maxamed uu la yimiday baan raacay buui anugu salaamada dakhaltu diina muxamed buu ka yidhi diintii nebi maxamed uu la yimiday ee islaamka ilaahay noogu soo dhiibay ayaan anigu maanta laga bilaabo aan ka mid ahay ehelkayga buui hadaad sheeganaysaana horaan uga baxayba markuu cimraystay oo lagu dhici waayo limaada lana ninkani waa boqor xintada laga cuno xinta shaciirka laga cuno dalkiisu ka baxa quraysh way taqaanaa markaas waxay is idhahdeen ninkaa haynagu taabanina haddaad nagu taabataan dhaqaaluhu naga jari mar alle markuu cimradii dhammaystay isaga u yimid oo ku yidhi qurayshay dhegaysta maanta laga bilaabaa xinta xabban xinto shaciira dalkayga inaga imani mayso ilaa nabi maxamed oo amar siiyo u sii daa igu yidhahda mooyaane ima ininkuu diinta islaamka soo gala mooyaane labada waxba kama dhexeeyaan buu yidhi waa ninkii ugu horreeyey baa la yidhi islaamnimada daraaddeed quraysh u saaray xisaar cunaqabatayn imika cunaqabataynta ayaa la saara yaa saartaa islaamkaa la saara maxaa lagu saarayaa laana adduunyadii baad jeclaatay adduunyadii baad weynaysay waxay gaaladu caabudayeen baad adiguna la caabuday marka way kaa adag yihiin ogow khadkoogii baad gashay markaasaa markii uu dalkiisii ku noqdayba qoomkiisi way wada islaameen markaasuu yihi magaaladii maka shaciir ha u dirina buu yihi xinto ha u dirina buu ka yidhi ka joojiya mar allihii markii ay maqleen reer maka ninkii uu ka joojiyey raashinkii badeecadii baad ascaarteedii baa kacday markaasay qurayshi nabiga warqad u soo qortay ku dhawarayaan ay leeyihiin yaa muxamed diintaadii ma waxay ku faraysaa inaad riximkaaga aada goysid ood gaajo ku dishid markaa buu nabigu maqlay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi hamaama binu afaal buu nabigu warqaddu qoro wuxuu ku yidhi tolka ilaahay baa soo hadayn doonee inooga sii daa buu ka yidhi raashinka u sii daa masaajidku saas wax u bedelaa uma tarabad fi lmasjid nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ragga taariikhdooda maanta caalamkao dhan laga wareeray ee la leeyahay hadday raggaasi adduunyada mar labaad iman lahaayeen mashkiladda caalamka taa laga kaaxlin lahaa bay yidhahdeen gaaladii lalahaa waa indheer garato waa khubara lagu sheegayey warkoodu wuxuu ku soo ururay inay yidhaahdaan cumar binu khadaab ninka la yidhaha hadduu caalamka maanta iman lahaa mashkiladda caalamka taalla isaga unba xallin kari lahaa
markay akhristeen siiradii cumar xagee ka soo baxeen raggaasi ayna taqarrajuu wallahi ahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina madaaris qur-aanka laga bartana may lahayn macaahidna may lahayn jaamacadana may lahayn meesha ay ummadda wax ka baratay masaajid buu ahaa masaajid meesha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu ku tarbiyadeyna masjidun ahayd masjid